ma arrintiin wallahi gabdhu waa dhibtoode gabdhaha Soomaaliyeed ilaahay dabna fawdiyay lagu dayacay ilmi lagu dayacay gaala daba joogto ilmi gaala ka qaateen ani hadda caasheer maaragtay markii dalay ma taqaan caasheer waa farxaa marka arko wallahi dadka Soomaaliyeed wallahi ani waa farxaa hadda ka hor Nairobi ka joogto waxaan dhijay maxaa u baahan tahay soo dilaadeer sababtoo ah markii qosliis waa ka helaa waxa uu helaa waa hooyo waa beer wax dhalay hadda maaragtay maariyada marka arko niidan ka taageeraa wallahi billah waxa way ilmihi ka baqa faado baraabur waa jecla deef waa jecla gabdhaha ilmaha laga qaato ama dhibtooda faadma aadan maxaa anigi aan ku raadsho taqaan oo raadi waxa arka tiyo niman islaamid ay kala laadaan oo dhibtaysan qalbiga ay xanuun ni wani waxa soo adkaysan karo wallahi qalbiga ay xanuun wallahi daahiro day wallahi ma xasuusto intii gabadha sheekeynaysa waxa cajiib daahiro waxa tiraahdaa hal mar dadka dhan waxay leeyihiin gabadha hadalku daahir hadal ma nafista u deena xarfanay ina liflay baan nahay anagoo dhan baa oo naga timid gaariga waan ka xayn lahayn bal ku soo wallahi waa cabursan wallahi baayan u daahir hadasho abay ku soo dhamayso kadib waxaa dhacday waxaan islaahay anigu cunugaas bilow maxaan ku dhahay inanka yarko kugu dheeldheelay oo ilmahan dhalay bilow aabihii uu maqlaa oo khayrku kuugu jira aan islaahay odayga wuxuu ku dhahay shilin lacaga ma haayo marka aan waxaan u fahmay inuu iga dhacaayo markuu nimanku inala joogeen oo la dhahayay raac alla nimanka meesha markay hodhaalkii aan tegay meel hodhaal maqaxyaan tegay waxaan markaan quraacday waa quraacday hadda markaan cunay aan ninkii meesha ka shaqeynaa ku dhahay walaala dhibaatadaas ay haysata saasaan ahay gabadhaasaan ahay jarbal baan ka imid xitaa lacagta ku quraacanayay xitaa lacagtan 200 ay igu jirto waxaa ka dhaafsan maan haysanin laakiin wuu iga daayay lacagta ku quraacanay wuu iga daayay wuxuu dhahaa walaal iska jishadaanka iska naarku iga dhahay waxaan ku dhisaasaan dhibaatadaas ay haysata waxaan 6 bilood aan maxaan ku dhaday wareegaya dhibaatadaas ay hayso waxaan hadda ugu dambeyn aan soo go'aansaday inuu bal aabihii ninkan marna maxkamadda ka hor cunuga khaaskan anigu dhalo rabaa marna kule 3 jeer maxkamadda tagay oo kala duwan 3daba cadeyntooda waan hayaa markii ugu horeysay markay Soomaalidu ku dhaadeen gabadhan garab istaag oo ilmaha maxaan ku dhaday gaalada ka soo badbaadi oo maxaan ku ilmaha kan diinta islaamta iyo ugu heeli oo muslimadan ugu heeli markay ku dhaadeen oo ilaahay ka cabso markii uu maxkamadda loo ballamiyay wuxuu ku yiri gabadhan anaa qaba iyo cunugan iyo labadan cunugba anaa isla dhalay kana dhiblaana dhalay kana anaa dhalay markaa waxaan rabaa inaan anigu wada haysto oo la igu soo wareejiyo labadiiba anaga ka wada mas'uul noqday buu ka yiri waa markii ugu horeysay 2 isbuuc hadii ka soo wareegtay looyaradiisa ula hadlay wuxuu dhahay anigu gabadha tan daaro balaari saaxib gabadha balaari weynayban ku socbay ku soc 2 isbuuc markii ka soo wareegtay wuxuu dhahay gabadha tan anigu waa balaaranta maxaa ka qaldan gabadha balaarin وني بدنا عيجي مركز كجامتها أوكي سيدا باي وحمدنا يدها بالمايس دراعية maxkamadda ugu horeysay wuxuu ka yiri anigu wax cunugan waan rabaa iyo ilmahan iyo cunugan kalena aan baan dhalay inaan dhalay iga dhigantaa iyo cunugan ba labadaba waa isla rabaa qofku intiisa sheegaa la dhahay maxkamadda ugu horeysay intaas uu ka yiri maxkamadda labaad 2 isbuuc markuu joogay ayuu ballan looyarkiisa ka qabsaday markii 2 isbuuc ka soo wareegtay lagu waayahay marka maxkamadda la tago qofku wuxuu rabo la wareesto waa la soo baaraa kadib baa go'aan maxkamaddu gaadhay la isku yimaadaa soo moogid waxay ku dhaadeen okay hadday saatay waa isku soo laabanayna maxkamadda anagoo saas ku soo kala maqan 2 isbuuc markii ka soo wareegtay wuxuu dhahay anigu looyarkiisa buu ballansaday wuxuu ku dhahay warqad inay qabtaan naagta tan meel lama soo istaagno habeen lama soo istaagno maalin lama soo istaagno hal cunug baan dhalay cunug kale aan ma dhalin waxba iga ma gelin buu dhahay anigu cunug baan dhalay cunugayga rabaa ma ii soo dhicin kartaa looyarada ha iyo maya هاي هذا والله يردي سوى كوسر أنا هذا وحنا كوب قرا محكمة ورقة محكمة الرجل وقرت ودرت محكمة ورقة الله يساعدنا الناس ودرت إسلا بيشي لبعد كذي هيك واحد هذا بلان بالسكوبي من دوان سكوبي من وحد ناشك طالب ده هاي إن أديكو أضربتين إنه جار رهتسو هاي وده هاي جار ربعين رهتسو ما جار ربتين رهتسو ها gabadha tanna labada cunug beeday ka wada maqan yihiin geedna waxay rabtaa inay cunug raadsato cunuga laakiin lama siinayo oo aniga khayr mas'uul baa iyo qoranba inaan cunuga aan booqan karo laakiin siin iyo soo celin iyo waxa lama hadalhayo adama fahansin oo waa kuwii kiska ii geliyo waxaan ka baqaynaa inay labada cunugba la baxdo oo amni ahaan uma aamineen waa kuwa iga qoran maaha
marka waxay dhaheen adigu cunugaaga waa lagu siin karaa haye laakiin gabadha wax kiisoo u furan amba hadal u furan haddeen ma jiro booqashadaas loo ogolyahay waan ka soo wada noqonay dadkii yaa kacay wiilasha odayaasha meesha jooga dhulmaantay baa loo wacay dadkii baa loo wacay oo ninka nagala hadla ilaahay ka cabsada ala la hadla haddana wuxuu yidhi waa rabaa haddana la ilaha illallah haddana waa rabaa ayuu dhahay looyaradii haddana u tegay waa rabaa maxakamadii haddana la balamiyo waa markii saddexaad maxakamadii haddana markaan wada tegnay naagta garsoore waxaa ku jira ninka kanow inaa waalinta inaa fiyuda aan kala fahmayo ku dhacday ma garatay waxaan aad wadidna ma garanayo shalay tol waxaad tiri anu naagta tan shaqo isku milyan haddana waxaad leedahay maxaa go-aankaaga bedelayaba ku jira oo kaa khaldan waa markii saddexaad waan kugu waranay baa lagu yidhi ma garatay markaas maxaan ku dhahay adigu soo tashaa lagu yidhi inigu isa soo fahma kadib igu soo noqday garsooriga dhahday maxaa la dhahdaa markii ugu dambeysay sidii uu ku baxay bay ahayd uu yidhi markii dambena soo tashada uu dhahay way diiday garsoorihii soo tashadkii kadib wuxuu yidhi adigana kuma arki karo ilmahaygana gaar baa u raadsanaya walaalo amaanisi hayaan dhahay amaanisi ahaa walaalo kadaa walaalo waan daba carare waan dhulka isdhigay mayuu dhahay shaqo kuma lihi ma saas ahaa waaniga markaas waaye markaan ku fikiray inaan odayga aado oon keeno isdhahay bilowaa waan keenaa odayga kan ninka islaamnimo heer uu ka gaadhay qof muslina oo ilaahay ka cabsoonaya sheekh dhan oo culimadaas wax akrinaya oo wax quraanka ilaahay diinka ilaahay faafinaya oo magaalo kale 4 saacadood u soo socday Copenhagen oo imaaday ka dhuuntay aan haddana kasii rajo qaba markaas aniga xitaa waan iska sii yaraa waxba ma fahansaneen